assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi maalinimada maanta dalka ruushka waxaa ka socda laba farxadood oo isbarbar socda ta koowaadi waa markii shanaad oo loo dhaarinayo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin inuu sii hogaamiyo dalka ruushka 6 sannadood ee soo socotaa tan labaadina waa dabaaldeg ay ugu jiraan dadka ruushka ah guusha ay ka soo hoyeen dagaalweynihii labaad ee adduunka labadan farxadood ayaa imanaya maalinun kadib markii dowladda ruushka aqalka looga arrimiyey kriminalka qoraal rasmi oo ka soo baxay lagu sheegay dowladda ruushku inay bilaabayso dhoolatuskeedii ugu weynaa ebid ee nukliyeera dhoolatuska ay bilaabayso dowladda ruushku ayaa waxa uu yimid kadib markii hadallo kala duwani ay ka soo yeereen madax reer galbeeda madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa dhowaanta sheegay in laga yaabo gaashaanbuurta nato ciidamo ka socda in loo diro dalka ukrain arrintaa ayuu si adag uga jawaabay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxaana uu ballan qaaday dagaalku inuu ukrain dhaafi doono haddiiba uu ku arko gudaha dalka ukrain hal askari oo ka socda gaashaanbuurta nato xilli dambena xoogayaha arrimaha dibadda ee dalka ingiriiska david cameron ayaa sheegay in yukraaniyiintu ay ku weerari karaan gudaha dalka ruushka hubabka ay ka helaan dalkiisa arrintaasuna waxay sababtay danjiraha dalka ruushka u fadhiya ingiriiska in looga yeero wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka iyo aqalka kriminalka ee dalka looga arrimiyo ayaa hadallada madaxda dalalka faransiiska iyo ingiriiska sheegay inay yihiin kuwo soo dhoweynaya dagaal nukliyeer oo xilligan adduunka ka bilowda sidoo kale afhayeen qaramada midoobey u hadlay waxa uu sheegay inaanu jirin xilli adduunku uga dhow yahay in laysu adeegsado hubka nukliyeerka xilligan aynu ku jirno dhankeeda dowladda belaruush oo saaxiib dhowla-a dalka ruushka madaxweynaha ka taliyaa waxa uu ku amray wasiirkiisa gaashaandhigga inuu kormeero ciidamadiisa ogaadana inay u diyaar yihiin dagaal weyn oo ay qaadaan dalka belaruush ayaa sidoo kale waxa yaallaa madaxyo nukliyeer ay dowladda ruushku iska leedahay maalmihii lasoo dhaafina waxaa la sheegay in madaxyo kale ruushku kusoo deldelaya dalka dowladda yukrain oo arrimahan ka hadashay waxay sheegtay hadalkanu inaanu waxba ka duwanayn hadalladii ka soo yeerayay madaxda kala duwan ee ruushka intii ay dagaalada ka wadeen dalkooda daawadayaal dabeecadaha bini'aadanka waxaa ka mid a wax walboo daba dheeraada inay ka daalaan dagaalka yukrain oo sii daba dheeraadana ugu dambaynta waa mid sababi karaa in laysu adeegsado hubka waxgumaadee nukliyeerka iyadoo aynu ka wada dherigsannahay dagaalweyne saddexaad oo adduunka ka bilowda inuu noqonayo mid hubka laysu adeegsado daawadayaal madaxweynaha dalka shiinaha waxaa si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada budapest ee caasimadda dalka hungari waxay noqotay dowladdii saddexaad uu booqdo tan iyo markii uu bilaabay safarkiisa uu ku marayo dalalka kala duwan ee ku yaala yurub dowladda hungari ayaa waxay tahay dowladda si weyn isugu dhow yihiin dalka shiinaha sidoo kalena waa dowlad aan laga jeclayn midowda yurub iyo gaashaanbuurta nato ay xubin ka tahay diblomaasiyad ahaan labada dowladood si weyn ayay isugu dhow yihiin hungarina waxay aqoonsatay dalka shiinaha markii la asaasay 5 maalmood oo keliya kadib dhaqaalaha iyo ganacsiga markaynu eegno labada dowladood waxay leeyihiin xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan keliya sannadadii 2022 ilaa 23 hungari waxay ka heshay shirkadaha kala duwan ee dalka shiinaha adduun lacageed oo hantigashi ahaa kana badnaa 13 bilyan oo dollar taasuna waxay ka dhigaysaa mid ka mid a dalalka yurubiyaanka ah ee hantigashiga ugu badan ka hela dalka shiinaha sidoo kale dowladda hungari waa dowladda iyo tan keliya midowda yurub iyo gaashaanbuurta nato ka tirsan kana mid ah mashruuca dowladda shiinuhu ay adduunka ku horumarisay loo yaqaano belt and roadka ra-iisul wasaaraha dalka hungari victor orban ayaa isagu waxa uu yahay nin aan laga jeclayn dalalka midowda yurub waxaana looga yaqaanaa keligi taliyihii ugu dambeeyey ee midowda yurub booqashooyinkanuu maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa madaxweynaha dalka shiinaha shi shinping ayaa iyagu waxay yihiin kuwo carigelinaya washington oo iyadu ah halka looga taliyo gebi ahaanba reer galbeedka